بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو دوادا برامج gaar ah oo aan uga hadlayno bandhig caalami ah oo dalka Talyaaniga lagu qaban doono kaas oo Soomaaliya markii ugu horeysay muddada la xasuusto ay ka qayb galayso waxaan barnaamijkaasi oo faahfaahsan iyo waliba waxyaabaha ujeedadiisa ay tahay iyo taariikhda bandhigaasi uu leeyahay aan ka wareysanayaa oo barnaamijkaasina oo aan uga hadlaynaa ambassador Ibrahim Xaaji Cabdiqaadir oo ah safiirka dawladda safiirka Soomaaliya u fadhiya hay'adaha qaramada midoobay ee dalka Talyaaniga isla markaana ah gudoomiyaha guud ee bandhigan caalamiga ee dalka Talyaaniga lagu qabanayo oo loo yaqaano bandhigaasi Expo Milano 2015 ugu horeyntii professor adoo kusoo dhawaanaya TV qaranka Soomaaliyeed waxaan ku weydiinayaa inaad faahfaahin ka bixiso ugu horeyntii bandhigan Expo-ga loo yaqaano wuxuu yahay taariikhdiisa. بسم الله الرحمن الرحيم والله ما حسنتها مركو هره SNTV waxaan ugu mahadcelinayaa fursad dhaqaaliga ay siisay Expo waa bandhig caalami ah oo shantii sanaba mar lagu qabto adduunka wadan kamid ah adduunka taariikh dheerna waa leeyahay marka sanadkan 2015 Expo waxa lagu qaban doonaa magaalada Milan ama Milano oo ku taala dalka Talyaaniga waa bandhig aad uga duwan bandhigyada ay dadku inta badan yaqaanaan waa bandhig 180 wadan ee adduunka ay inta badan ka soo qayb galaan hadda sanadkan waxaa la rajaynayaa inay ka soo qayb gali doonaan in ka badan 140 wadan oo dunida kamid ah waa bandhig muddo dheer socon doona wuxuu bilaabanayaa 1 Maajo oo bisha hadda wax yar nooga dhiman ilaa iyo 11 Oktoobar bisha tobnaad ee sanadkan marka 6 bilood u soconaya waxaa loogu talagalay in wadan walba uu ku muujiyo awoodda dhaqaale iyo awoodda bulsho iyo khayraadka wadankaas ku jira si uu adduunka ula jaan qaadi karo ama adduunka ula qabsan karo marka wadamada ayaa waxay ka yihiin aktarada shirkaas ama bandhigan waxyaabaha lagu soo bandhigay mar hadaa ka hadashay dhaqaalaha oo kale dadku waxay yaqaan bandhig hadii la yiraahdo carwo oo lagu soo bandhigayo noocyada kala duwan badeecooyinka masaasa bandhigan waxa caan u ah ama lagu yaqaan inuu yahay bandhig aan ganacsi ahayn waa gartay ma aha bandhig oo loola jeedo waa bandhig aan waxba lagu kala iibsanaynin markaas waa gartay laakiin wadanka ka qayb galaya isagoo matalaya guud ahaan wadankiisa hay'adihiisa dhaqaale shirkadihiisa kambaniyadiisa nimanka bacmushtarada ah isagoo si guud u masalaya ayuu wuxuu soo bandhigayaa waxyaabaha uu caanka ku yahay oo khayraadkiisa ah dhaqaalaha awoodda wadankaas uu leeyahay ama waxyaabaha wadankaas uu hiigsanayo mustaqbalka marka runaantii waa bandhig waxa la yiraahdaa non commercial waa bandhig aan markaa ganacsi wax lagu kala iibsada ahayn micni waxa waaye wadankan wuxuu soo bandhigayaa khayraadkaas aan leeyahay adduunka bal iimaal gashta oo iga faa'iideysta ana idinka faa'iideysta saas oo micnaheedu miya saas ay u dhigantaa waxa waaye waa meel muraayad ah oo adduunka oo dhan ay isku arkayaan ku wada hadlayaan xaqiiqdii waxaa jira shirar badan ama workshop waxyaabahan loo yaqaano ayaa qolo walba ay diyaarin doontaa shirkaagii markaad qabanayso dhaqaalahaagii iyo wax soo saarkaagii iyo fursadaha qaniga wadankaas ku yahay markaad ka hadlayso waxaa casuumaadaas kasoo qayb galaya ama shirarkaas kasoo qayb galaya shirkado ciidaas ka badan oo dunida daafaheeda iyagoo wadano ah iyagoo shirkado private ah marka waa meel adigu aad yani u tegayso inaad isku muujiso kuna soo muujiso awoodaadii wax soo saar dhaqaale iyo midda hadda jirta kaliya ma ahane midda uu qofka markaas higsanayo ama wadankaas uu higsanayo maadaama bandhigan bandhig caalami uu yahay isla markaana hadda taariikhda inta la xasuusto hadda Soomaaliya ay tahay markii ugu horeysay ay ka qayb galayso shirkaasi mase bandhigaasi dhinaca Soomaaliya ka waran bal waxa ay ka faa'iideyso iyo waa gartay waxaan rabaa inaan adoo mahadsan aan horta halkan xoogaa ka cadeeyo bandhigyada marka la qabanayo topic-yo ama mawduucyo gaar ah ayaa lagu saleeyaa bandhiga waa gartay oo slogan u ah oo sanadkaas si gaar ah diiradda loo saaray waa gartay bandhigan caalamiga ee Milano 2015 waxay focuska ama diiraddu ay saaran tahay wax la yiraahdo cunnada
waxa uu maaragtay magaciisa uu yahay feeding the planet energy for life. micnaheedu ay tahay quudinta dhulka si loo helo iyo tamarta nolosha. erey noocaasa ayay dadkii soo qaban qaabiyey ay qaateen halku dhig u qaateen. talyaanigu runtii tartan baa lagula galay sanado ka hor markii la go-aansanayay inuu wadankaas lagu qabto, tartan baa loo gelaya. waxyaabaha uu ku guulaystay waxaa kamid ah halku dhigaas uu sheegay, waayo adduunka maanta la joogo oo ilaa 6 bilyan oo qof iyo ka badan ay ku nool yihiin. waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga wada hadlo ama laisugu imaado cunna ugu muhiimsan waa in dadkaas noloshiisa la helaa cunno ku filan, waxaan la yidhaahdo food security. marka topica runta ah ama mawduuca runta ah waa cunno. soomaaliya marka fursad qaali ah ayay u tahay ka qaybgelista bandhigan oo runtii aan muddooyinkan intii burburka u dhacay ama wixii ka horreeyayba laga yaabo inaan hore looga qaybgelin. anugu intaan xasuusto kolleyba fursaddu maxay tahay haddii laga hadli lahaa technology, hadduu bandhigan mawduuciisa ahaan lahaa technology, haddii soomaalidu wax badan oo ay muujiso meesha maba taalo oo dhibaatay ku ahaan lahayd oo technolojiyada aad baan ugu liidanaa wadan lagu hadlahay oo burbursan oo hadda yani bilaabayo inuu kasoo kabto. laakiin mar haddii cuno laga hadlayo wadankeena waa cunada qani uu ka yahay. beerihii dhulkii 8 milyan oo hektar oo aan ilaahay nagu maraystay ama labada webi dhexdooda ha noqoto ama meelo kale oo gobolada khayraadka badda ama ha noqdaan khayraadkii baddeena baaxadda dheer oo 3,300 oo kilomitir oo malaayga ku jira ama kalluunka ku jira uu cid kasta ka badan yahay oo hadday kolley noqon kara intaas keliya khayraad uu wadanka uu dibadda u iibgeeyo xeebtii ugu dheer baan qabnaa. xoolaha ayaa iyadana ah waxyaabaha soomaaliya aan wadana kaga horreynin. taariikhda iyo waxyaabaha la hayo waxaa ku jira in soomaaliya ay ku nool yihiin ama ay leedahay qaninimo ah 50 milyan oo xoolo oo isugu jira geel, ari iyo lo. marka wadan la mid ah adduunka ma jiro xagga kheyraadka xoolaha. baduna hadda waa bad aada u ballaaran oo ilaahayna siiyey. marka soomaaliya haddii hadda xilligan hadda la joogo aanay awoodaheeda wax soo saarka dhinaca beeraha iyo xoolaha ama badda oo aanay saa u weyneyn oo ay dawladdu maaragtay dagaalo badan kadib ay hadda uun bilaabayso inay kasoo kabato, laakiin waa wadan ballan qaadi kara oo mustaqbalka hiigsiga mustaqbalka uu yahay mid naruuro weyn ku ah ummadda. aniga waxaan jeclaan lahaa inaan halkan ummadda ee fiirsanaysa dadweynaha soomaaliyeed aan u sheego waxaan qaadanay annagana sida bandhiga caalamiga ee Expo Milano loo yiri halkudhigiisu u yahay quudinta dhulka iyo tamarta nolosha. annaga waxaan u qaadanay halkudhig waxa la yiraahdo neecawda isbedelka oo ingiriisku noqonayo markaas center of life, center of change. Soomaaliya waxaan jecelnahay marka inay fursadan u noqoto midii ay ku dareemi lahayd saxada iyo gudgoonka isbedelka uu leeyahay. wadan maalgashi badan ay ku helayaan, uusan ahayn wadan dagaal, uusan ahayn wadan dhibaato, uusan ahayn wadan abaar, ee uu noqon karo mustaqbalka dhow wadan barwaaqo. ambassadore ayaan dhaway shir looga hadlayo mase gogol xaar waa sida lagu sheegay Expo-gaas mase bandhiga caalamiga ee Milano ayaa magaalada Muqdisho lagu qabtay. marka shirkaas iyo qabanqaabada Soomaaliya bandhigaas ay waxa ay la shirtagayso bal ka waran. waa mahadsan tahay. ujeedadu shirkaas iyo ujeedada runtii booqashadayda aan dib ugu soo noqday magaalada Muqdisho ee wadankan aan jecelnahay Soomaaliyeed wuxuu ahaa inaan u sameyno wacyigelin waxyaabaha uu Expo u yahay. waa inaan dadweynihii ama gaar ahaan dadka bacmushtarka ah ee dhaqaalaha ka shaqeeya, beeralayda iyo iskaashatooyinka, kambaniyada, in alle intii ku hawlan arrimaha dhaqaalaha ayay tahay inaan ahayd inaan u sheego la ogeysiiyo shirkii bandhigii soo socda. ujeedadiisu waxay tahay laga dhaadhiciyo sida iyo hataa habka looga qaybgeli karo. marka runtii ganacsatadii ka kala timid gobolada kala duwan waxaa kaloo aan aada ugu faraxsanahay in markii ugu horreysay intaan ogahay si qurux badan ay isku soo horfadhiisteen rugaha ganacsi ee Soomaaliya ka jira. hadday noqon lahayd midda guud ee wadanka nationalka ah,
hadday noqon lahayd kuwa maamul goboleedyada hadda noo dhisan oo dowladda federaalka aqoonsan puntland baa kamid ahayd south west ama koonfur galbeed baa kamid ahayd jubbaland baa kamid ahayd aad bay u qurux badneyd in intaasoo rugo ganacsi oo soomaalinimo ah ay isugu yimaadaan wasiiradii sidoo kale goboladaas ganacsiga wasiiradaha ganacsiga iyo warshadaha goboladaas baa iyagana joogay waxaa dabcan hogaaminaya hawshaas oo dhan dowladda federaalka ah wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalka ah mudane cabdiraxmaan ayaa shirgudoominayay oo dadkana cazumay anigana wasaaraddaas ayaan hadda arrimaha ku saabsan bandhiga expoga aan hoos tagaa oo marka aan wakiil uga ahay dowladda Soomaaliyeed qabanqaabadeeda marka ujeedada shirku intaas ahayd runtii si qurux badan ayaana looga faa'iidaystay oo uga maasaxay maadaama adii gudoomiyaha guud ee bandhigan caalamiga ah ee Soomaaliya mise qaybta Soomaaliya u qaabilsan adiga tahay oo isla markaana qofkii hindisahan dalka keenay oo rabo in Soomaaliya ay suuqaas caalamiga ay waxay haysato ku soo bandhigto uu yahay marka Soomaaliya yaa ugu qayb galaya hadda inta la qorsheeyay wax yar aan saxo su'aashaada anigu ma aan alifin oo ma aha ninka keenay maaragtay bandhiga dowladda Soomaaliyeed ayaa lagu cazumay oo dowladda Talyaaniga oo martida loo yahay baa waxay cazumtaa wadamada adduunka oo dhan marka cazumaad oo rasmi ah ayay dowladda Soomaaliyeed ka heshay dowladda Talyaaniga inay bandhigaas ka qayb gasho dowladda Soomaaliyeed oo federaalka ahna waa ay ka jawaabtay oo waxay tiri waayahay waan imanaynaa markii ay ajiibaysay marka waxay magacaabatay qof wakiil uga noqda marka sidaasan anigu wakiilnimada hadda aan ku ahay ku timid marka intaas waxaan rabaa inaan caddeeyo marka annaga dowladdan la shaqaynaynaa oo waxaan ahay howlwadeen yani ummadda iyo dowladda federaalka u shaqeeya haddii aan marka usoo noqdo su-aashaada qaybteeda labaad sideen uga qayb gelaynaa dabcan waxaan rabaa inaan caddeeyo wadan ahaan baa meesha loo tegaya wadankaygu waa hal wadan oo federaal ah dowladda federaalkuna ay mas-uul ka tahay waxyaabahaan soo bandhigayno marka guud ahaan wadanka Soomaaliya ay qaabilsan yihiin oo ama ay wadanka ayaa runtii la matalaya wadanka sheeganaya ama soo bandhigaya ama muujinaya awoodiisa dhaqaale ee dhinaca wax soo saarka beeraha cunnada xoolaha iyo badaba oo kalluunka uu qaniga aan ku nahay uu ka buuxo shirkadaha marka daneeya private-ka ah oo kala duwan ama kambaniyada ama dadka ganacsatada ah oo iyagana aad ugu hawlan oo maalgashi badan ku sameeyay ama haddaba ku sameynaya ama mustaqbalka laga rajaynayo inay wax soo saarka ku sameeyaan ayaa iyagana qayb ka ah oo waliba qaybta ugu muhiimsan ka qaadanaya xaqiiqdii arrintan dowladdu ay wakiilka magaca adduunka uga tahay Soomaaliya waxay la shaqeynaysaa oo aan dabcan aan hawshan la wadaagaynaa rugaha ganacsi ee Soomaaliya laga bilaabo rugta ganacsiga ee federaalka ah oo wadanka oo dhan iyo rugaha ganacsi ee gobolada kala duwan oo maamulada marka si isku xiran oo isku ujeedaha ayaan shirku tagi doonaa ama bandhigaas u tagi doonaa ama soo raado maasan waxaan dib u fiirinaynaa bandhigan marka waxaa lagu sheegay mas'uuliyadda oo qoraalkiisa ay tahay inuusan mid ganacsi ahayn isla markaana waxaa la sheegay in lagu soo bandhigayo kheyraadka waddanku leeyahay sidee loo soo bandhigaa ma khudbada la jeedinaa qaabkee loo soo bandhigaa su-aal aada u qurux badan waa kaaga mahad celinaya waxaan leenahay oo aan already ama mar hore diyaarinay dabcan intii aan u magacaabnaa hawshan intaan waddanka kusoo noqon hadda aan hore usoo diyaariyey meeshii ama goobtii horta bandhiga Soomaaliya lagu qaban lahaa marka waddanka iyaga wuxuu leeyahay space ama raaxad meel leh oo aada u weyn oo uu yani qalabaysan hoosna bandhigaysi ah qaybta korana xafiisyo iyo qolal lagu shira ah agabkiisa oo dhanna uu dhammaystiran yahay teleefanadii computerkii kuraastii fadhigii wixii agabaa loo baahan wixii oo dhan waa waxaa noogu deeqay dowladda Talyaaniga oo aan aada ugu mahad celinayno marka qaybta hoose oo bandhiga ah waxay noqon doontaa in wax lagu soo bandhigo habkan la yidhahdo multimedia يعني screen ama shaashado ayaa ku dhegan meelaha oo dhan oo ay si daba joog ah uga baxayaan muuqaalo kala duwan oo cod leh oo ka sheekeynaya kheyraadka kala duwan ee waddanka uu leeyahay marka maalintii oo dhan shirka ama bandhiga wuxuu furmayaa maalin walba subax 10 subaxnimo
ilaa habeenkii 11 habeennimo ayuu soconaya. marka intaas oo dhan waxaa la rabaa dadka kusoo booqanaya ee soo gelaya inay helaan dad soo dhaweynaya oo halwadeen ah, inay daawan karaan muuqaaladaas muuqa oo televisionka ka baxayo, screenka ka baxayo oo si isdaba joog ah dhambaalo kala duwan u gudbinaya. dabcan af ingiriis bay ku bixi doonaan si ay adduunka oo dhan dadku ay u fahmaan. sidoo kale waxaan qaybin doonaa oo meesha dadka jooga hawladu ay dadku siin doonaan waxaan la yidhahdo broshuurka ama warqadahan daabacan shirkadaha kala duwan ay la iman doonaan, oo shirkad walba markaa waxay meesha keensanaysaa fariinteedii, waxyaabaha ay qabato, waxyaabaha ay jeceshahay inay qabato, waxyaabaha ay mustaqbalka qaban doonto, iyo awoodda ay markaas ku jirta dhinaca wax soo saarka beeraha. marka hab noocaas ah ayaa wax loo soo gudbinaya. ma xarina ama waa la ogol yahay in wax qalalan haddii qofka oo laakiin bacaysan uu geeyo sida sisinta ama waxyaabaha hadda Soomaaliya ay aad ugu horumarsan tahay, qani ku tahay, laakiin qaleelna ah bac fiicanna ku jirta meesha waa lagu soo bandhigi karaa oo waxaa la dhihi karaa sisintaas oo noocaas u eg ayaan sameynaa waa la dhihi karaa. waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo Soomaaliya waxay si xoog leh ay diiradda u saartay ilan waxaan cunnada ku saabsan oo wax badan dhinaca xoolaha. waayo qani baan ku nahay oo adduunka wadanka ugu waxaan nahay dhinaca xoolaha, iibgeynta xoolaha dibadda ugu qanisan. dadweynaha Soomaaliyeed waxa laga yaabaa inaanay la soconin, laakiin iyadoo maanta ay dawladdu iska taageer tahay oo dagaalo wadanka ka jiraan oo awoodaha iyo infrastructure waxyaabaha la yiraahdo uusan dhamaystirnayn, haddana bacmistarka Soomaaliyeed waxay awood u yeesheen inay sanadihii ugu dambeeyay dhoofiyaan sanad walba 5 milyan oo neef oo xoolaha. marka intaas kaliya adduunka aan la shirtagno waxay muujinaysaa waxyaabaha aan qaniga ku nahay iyo awoodda wadanka ku dahsoon ee dhaqaale. marka annaga focuska iyaga ugu weyn runaantii waxaan saarnay xoolaha, laakiin macnaheedu ma aha inaan beero laga hadli doonin, macnaheedu ma aha inaan badii iyo kheyraadkeedii aan laga hadli. aada mahadsantahay. bandhigan oo bandhigyada caalamiga oo ka duwan kan ganacsiga sida uu kubadda cagta oo kale marka la fiiriyo waxaa jiro waxaa lagu guuleystaa jiro ma bandhigan 440 wadan kasoo qaybgalaya Milano Expo 2015 masaas oo kale tartan ma jiro oo la ogaanayo dhow wadankaas ugu fiicnaa waxa soo bandhigiisa la ma jiro. ma xaqiiqdii tartan ma jiro. wadamaduna isku tabar iyo isku taag ma aha. marka taasu anaga waa ma fiican tahay inaan tartan noocaas jirin. laakiin waxaan rabaa inaan qiyaastii halkan ka sheego 6 bilood ee uu bandhiga socdo 20 milyan oo dalxiisayaal ayaa iman doona wadanka. maalintii qiyaastu waxay tahay 100,000 oo qof inay booqanayso meeshaas uu ka socdo bandhiga. waxaa dhulka uu ku fadhiyo baaxadda uu dhulka bandhiga lagu sameynayo uu yahay 1 milyan dhibic 1 meter square. marka qiyaasa run ahaantii oo laakiin laga helayo meel caruurta ay ku ciyaarto, laga helayo tiyaataro dadku ay kusoo bandhigaan waxyaabaha markaas ummadda lagu maaragtay entertainment loogu sameynayo. ma aha keliya marka meel uu markaas message lasoo gudbinayo qofka soo booqanaya dalxiiska u imaanaya hadduu family yahay oo caruurtiisa la socoto caruurta meel ku dheelayaan bay uusan boring u noqon uusan uga niyad jabin ama uga caajisay. waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan iyadana sheego waa 184 maalmood inta uu bandhigu socon doono. wadan walba waxaa la siiyey maalin uu wadankiisa noqonayo wadamada oo dhan ay yani maalintaas asaas kale oo ay u feesteyn doonaan ayaga iga lumay af Soomaaliga waxa fardeyn doonaan ama maaragtay uu dabaaldegi doonaan. marka taariikh baa doortana la yiri oo wadamadu annaga xoogaa runtii mar dambaanu ku biirnay oo aan ogolaanay inaan ka qayb galno. marka taariikhdii igu qurux badneed oo markaas aan xulan karay waxay noqotay 3 bisha September ayaa waxay noqon doontaa National Day Soomaaliya National Day. maalintaas caalamada Soomaaliya ayaa ku xardhan dhulkaas oo dhan. maalintaas waxaan Soomaali ahayn lagama hadlaayo. maalintaas waxaan kusoo bandhigaynaa waxyaabaha aan caanka ku nahay ama aan jecelnahay inaan muujino, ha noqoto hiddo iyo dhaqan, ha noqoto aqoonta guud ee Soomaaliya, ha noqoto waxa la yiraahdo
waxyaabaha aan caanka ku nahay xagga dhaqaalaha iyo socialka ama bulshada ku saabsan waxaa kasoo qaybgeli doona dabcan madaxda ugu sarreysa ee wadanka oo maalintaas meesha macsuumaad ku leh maanta run ahaantii waxaan la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo anigoo la socda safiirka talyaaniga ee soomaaliya u fadhiya Fabrizio Marcelli waxaana loo gudbiyey casuumaad rasmi ah oo dawladda talyaanigu ay u fidisay madaxweynaha Soomaaliyeed si uu uga soo qayb galo maalinta Soomaalida loogu talagalay ee 3 September si farxad leh ayuu madaxweynuhu ku qaabilay arrintaas una ballan qaaday inuu imaanayo aad u mahadsan tahay marka haddii aan Soomaaliya usoo laabano Soomaaliya waxyaabaha mid ilaa la dhihi karo oo bandhigaasi faa'iido ay u tahay mid waa in adduunka meel isugu imaanay iska soo bandhigto waxa ay haysatay waa farxad waaye marka waxyaabo mid ilaa la dhihi karo oo Soomaaliya ay faa'iido ugu jirto anigu waxaan aaminsanahay dabcan hawlwadeen baan ahayo wax diyaariya laakiin dabcan wixii ummadda ama dadka ganacsatada ama dadka maalgashiga ku sameeyay cunnada iyo warshadaha cunnada farsameeya iyo beeraha iyo ayaa horta kulliba dadaal dheer laga rabaa inay muujiyaan oo hadda sidii loo dadaalo ayaa natiijada laga heli doonana ay u badnaan doontaa laakiin haddaan tusaale soo qaato Soomaaliya waxaan niri waa wadanka ugu badan adduunka ama xoolaha nool dhoofiya dabcan xoolaheena nool hadda muddooyinkan ugu dambeeyay waa wadamada carabta oo dhan dhoofina oo galf ka diriska kaliya qaata khaliiska qaata laakiin intaas inaan ku koobnaano sax ma aha suuqu waa inuu meel kale ka furmaa marka haddii ay isu imanayaan intaas oo wadamo adduunka oo Yurub iyo Mareykan iyo wadamada Asianka kale ay ku jiraan waxay noqonaysaa fursad ay suuqyada xoolaheena nool loo eebgen karo ama xoolaha hataa iyagoo halkan lagu farsameeyay maqaarka xoolaha oo kale hadda Yurub waa aad u qiimo ugu leeyahay waxaa laga sameeyaa kabaha waxaa laga sameeyaa suumanka waxaa laga sameeyaa boorsooyinka haddii marka warshado hilibka farsameeyo oo xoolaha halkan lagu qabo tusaale ahaan maxay noqon doontaa shaqo ka abuurmayso dad badan oo Soomaaliyeed baa shaqo ka heli doona warshadahaas neefkii kaligiisii bixi lahaa isagoo nool hadda markaad qasho dhowr waxbaa ka soo baxaya hilibkii gooni baad u iibinaysaa haragii gooni baad u iibsanaysaa oo aad ugu qiimo badan wadamada Yurub oo kale oo aad yani qiimihiisu u sareeyo waxyaabaha hataa Soomaalidu hadda aanay fahmaynin sida dhiigga hataa dhuuxa waxbaa laga samaystaa lafaha waxbaa laga samaystaa wax la tuuraa ma jiro sax marka taasoo kale horumar baan ka gaari karnaa oo ah inaan wax la wadaagno waxaan in la ogaado oo laakiin waliba aan contact waxa la yiraahdo business to business baa jiri doona macnaheedu waxay tahay waxa si joogto ah u kulmaaya labada dhinac dadka maalqabeennadeenna iyo macaamiisharkeena Soomaaliyeed iyo dadka kale oo adduunka kale iyagana horumarka waliba ka sameeyay ama ha noqdaan wadanka martida loo yahay ama ha noqdo wadamada kale oo iyagana meesha jooga oo carabtu ay kamid tahay ama Yurub ay kamid yihiin taas horta waxaan filayaa inaan guul ka gaari karno xagga xoolaha beeraha haddaan soo qaadano muuskeeni baa dib u soo noolaanaya oo Soomaaliya waxay ahaan jirtay muusaska looga jecel yahay oo Soomaalita iyo Somali fruit iyo waxa jiray anigu Yurub baan wax badan ku noolaa intuusan burburka dhicinna waan tegay wadanka Talyaaniga waxaan xasuustaa sida muuska Soomaaliya ka yimaada uu ahaa muuska ugu qiimaha badan suuqyada Talyaaniga marka hadda waxay noo noqon doontaa fursad aan dib ugu soo mar labaad aan dib ugu soo noqono oo marka aan suuq u geysano sisinta kamid ah waxyaabaha hadda aan ogahay wadanka inuu bilaabay inuu dhoofiyo wax alla waxay fruitiska oo la yiraahdo tropical fruits ama waxyaabaha aan Europe laga helin cambe babaay bombeelmada liinta intaas oo dhan maanta ma dhoofino mustaqbalka waxay noqon doontaa inaan u iibgeeyno shirkado aad u daneeya laakiin shirkaduhu wadankii haddaan iban karin anigii baa waxaan ka qaybaleynaa meel shirkadihii ay wada fadhiyaan wixii la tusaale 6 bilooda waqti la qabaa markay in lagu sheekaysto gooni isu arko si guud loo sheekaysto marka faa'iidada ugu weyn waa taas ugu dambeyntii professor fariintaada ganacsatada Soomaaliyeed mas'uul aan shacabka Soomaaliyeed aad u gudbin lahayd maadaama aad tahay qaban qaabiyaha hawshan dhinaca Soomaaliya iyo wasaaradda iyo dawladda Soomaaliya u xilsaartay waa mahadsan tahay waan ka faa'iideysanayaa fursadda qaaliga ah waxaan horta marka hore rabaa inaan mahad gaar ah halkan ugu soo jeediyo wasaaradda ganacsiga oo run ahaantii arrintan culeys oo maanta dadaal ah saartay ka qaybgalkana maartay jawaab fiican ka bixisay oo anna ii magacawday inaan wakiil uga noqdo qaban qaabinta hawshan oo baaxadda leh ha noqdo wasiirkii ka horreeyay wasiirka maanta jooga
iyo wasiirka hadda jooga isagana gacan xoog leh naga siinaya arrintaas. waxaan kaloo mahad gaara ugu celinayaa madaxweynaha oo maanta aan la kulmay federaalka mudane xasan sheekh maxamuud oo isagana runtii si niyad ah oo maaragtay farxad leh noo qaabilay oo weliba ballan qaaday inuu iman doono maalinta ugu qurux badan oo anaga aan yeelan doono oo ah maalinta national day-ga la yihahdo maalinta qaranka ee soomaaliyeed 3 September. waxaa mahad kale aan usoo jeedinayaa guud ahaan rugaha ganacsiga ee soomaaliya si gaar ah rugta ganacsiga ee wadanka federaalka oo magaalada muqdisho ka dhisan oo iyagana runtii soo dhaweyn qurux badan na siiyey aniga iyo team baan ku nimid adduunka da hawl qof keligii wadi kara ma jiro marka dad soomaaliyeed oo voluntary basis ku shaqeeyaan nahay run ahaantii wadanka dhaqaalihiisu waa iska ognahay marka wiil iyo gabar baa hadda iyo laba wiil iyo gabar baa ila socday oo safarkan aan kusoo aadnay magaalada muqdisho igu weelinayo oo ah dadkii igala shaqeynaya hawshaas iyaga mahad gaar aan u celinayaa dadkiina soo dhaweeyey baan ka waday marka oo rugta ganacsiga ee magaalada muqdisho ama rugta ganacsiga ee qaranka iyaguna aad baan mahad gaara ugu celinayaa guud ahaan intii shirkii hadda aan qabanay maalinta isniinta ahayd maaragtay timidna mahad baan u celinayaa intaa ka sokow marka fariinta ugu dambeyso aan ummadda u dhiibaya waxay tahay waa fursad qaali ah laga qayb galo waddankeennii aan usoo jiidano maaragtay wanaag iyo magac iyo oon adduunka markaa ku kasbano waxaan maaragtay jeclahay in aan ku gabagabeeyo halku dhegeygeeni aniga aan markaa runtii aan ugu talagalnay inaan meesha la shir tagno oo ah neecawda isbedelka soomaaliya waxay noqon doontaa waddan ay usoo carfayso isbedel saxa isbedel ayaa jira saadaashana waa guud insha allah guud ahaan barnaamijka gaarka ah daawadayaal oo ku saabsanaa bandhiga caalamiga ee Expo Milan 2015 ee aan uga hadlaynay inta ayaanu kusoo gabagabeyn waxaan u mahad celinayaa ambassador Ibrahim Xaaji Cabdiqaadir oo ah safiirka dawladda Soomaaliya u qaabilsan hay'adaha qaramada midoobay isla markaana gudoomiyaha guud ee bandhiga caalamiga ee Soomaaliya u qaabilsan qabanqaabada sidoo kale waxaan u mahad celinayaa saaxiibkay Cabdiraxmaan Abdulle oo dhinaca kaamirada qayb naga siiyay aniga Cali Cabdiraxmaan oo idin soo siinayay tan iyo kulan dambe sidaa ayaan nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.